قل للعيون إذا تساقط دمعها الله أكبر من لظى الأحزان. قل للفؤاد إذا تعاظم كربه رب الفؤاد بلطفه يرعاني. nicmooyinka waaweyn ee allah subxaanahu wa tacaala ugu deeqay insaanka keensanayana inay ka shukriyaan waxaa ka mid ah nicmada aragga. allah subxaanahu wa tacaala wuxuu qur'aanka ku yidhi isagoona dareensiinaya nimcadan: ألم نجعل له عينين waa labada indhood kuwa uu ku arkayo waxa hareerihiisa ah, ku kala soocayo waxyaabaha kala duwan sida midabada. waa ayaga kuwa uu wax ku arkayo marka uu ku fakarayo makhluuqaadka allah iyo aayadaha tusinaya waxdaaniyada alleh, sidoo kale weynidiisa ee ku kala firirsan dunida iyo faa'iidooyin kale oo intaas ka badan. sidaas darteed weyninka ay leedahay abaalmarinta la siinayo qofka lagu jarribay indhala'aanta ee ku sabra kuna dalba ajar uu allah agtiisa ka helayo isla markaana xisaabsada waxaad ka garan kartaa xadiidkan ku sugan bukhaari ee uu warinayo anas binu maalik radiyallaahu canhu. rasuulka allah sala allahu calayhi wasallam waxa uu yidhi, allah casa wajalla wuxuu yidhi, haddii aan addoonkayga ku imtixaano labada uu jecel yahay oo uu ula jeedo labadiisa indhood kadibna ku sabro, waxaan ugu beddelayaa janno. haddaba xadiidkan waxaa ku jirta bishaaro weyn oo ah janno uuna helayo qof weliba oo mu'min ah oo uu allah casa wajalla ku imtixaanay araggiisa ajarna xisaabsada. wuxuu kaloo allah subxaanahu wa tacaala ku magacaabay labada indhood laba la jecel yahay, maxaa yeelay waa labada uu insaanku ugu jecel yahay xubnihiisa. haddaba maanta waxaan idin wadnaa talooyin uu soo jeediyey doctor shiina oo ka mid ah dhaqaatiirta Soomaaliyeed, in muddo ahna ku soo dhex jiray daaweynta cudurrada ku dhaca indhaha, waxayna ku socdaan dadka qaba xanuunada indhaha. ugu horrayn wuxuu dhakhtarku inala wadaagayaa tirakoobka dadka arag la'aanta ah ee ku nool Soomaaliya iyo inta sanadkii ku soo biirta. Soomaaliya waxaa ku nool dad ka badan 150,000 oo qof oo indhala. sanad walba waxaa ku soo biira 15,000 oo cusub. indhala'aanta 80% waxba laga qaban karaa. haddaba muxuu yahay cudurka ugu badan ee indhala'aanta sababa? waxa ugu badan indhala'aanta keena waxa weeyaan caadka indhaha gala ee qalliinka u baahan. qalliinkii waa isbedelay hadda, qalliin casri oo noqday oo laser lagu qalo qofkuna wax dhaawaca aan la gaarsiinayn. mararka qaarkood qofka aan irbadihii kawid ahaa aan lagu mudayn. goorma ayaa fiican qofku inuu isdaaweeyo? waxaa inoo sheegaya doctor shiine. dadkuna waxa fiican qofka inuu inta araggiisu wanaagsan yahay markuu caadku soo bilaabo ee araggiisu ilaa 80% yahay ama 70 noqdo ama 90 noqdo, in caadka yar laga qaado wanaagsan, laserka laga qaado si qofka uu arag wanaagsan u helo, isla markaana dhibaatada iman lahayd caadkeen laha mustaqbalka uga badbaado. waayo maalin walba waxaa noo yimaada dad waaweyn oo da ah oo indhihii intuu caadka ku raagay biyo ku furay indhihii ka dhinteen. dhayli maalin walba 2 qof 3 qof 4 qof oo indhihii ay ka dhinteen, sabab tay uga dhinteen ay tahay in caadkii uu ku raagay ayaa noo yimaada. si marka taa looga hortago waxaan kula talin lahayn dadku intay wax arkayaan ee caadkoodu jilicsan yahay in loo sameeyo qalliinka sahlan ee laserka ah, aragooduna 100% uu noqonayo, wax dhibaato ay dhaawac kale aan lahayn. marka laga soo tago caadka indhaha, ma jiraan cudurro kale oo indhala'aanta keena? waxaa mar kale inooga warramayay doctor shiine. waxyaaba kale indhala'aanta keena waxaa ka mid ah xanuunka la glaucoma oo ah indhaha oo biyo ku furmayaan. biyahaasi waa biyo khatara oo indhaha qofka dilaya oo xagga dambe kaga furmayaan. kuwan soo baxaya, ilmada soo baxaysa wax dhibaato ah ma laha. برشرك إيش كورو كعيا برشرك مركب ترحيد كدب كقاضي أيوديليا مركا تاني وحلوه هرتكره وحويان قفكو إن سنة كأمل سنة مر ونخاطرت إنها الحريرة سلوه الشيء هدي على ده صوص عطاء اللوه هرتوا
waxaa kale ka mid ah in la'aanta keena xanuunka la yidhaaha macaanka ama sokorta oo markuu qofku 10 sano hayo ay dhici karto inuu shabakada dambe dhiig ku furo. xanuunka qudhiisa waa la daweeyaa oo leysara lagu daweeyaa, leysarada lagu daweeyaa way yaalaan. waxaa kale lagu daweeyaa irbado lagu mudo oo afstiin la yiraahdo, iyagu qudhoodu way yaalaan oo waa la helaa hadda Muqdisho iyo Hargeysa labadaba waa laga helaa. ugu dambeyntii wuxuu digtoorku ku soo gabagabeynayaa talooyin ku socda dadka qaba cudurka macaanka. marka waxaan kula talinayaa dadka macaanka qaba qudhooda in ay la socdaan dhakhaatiirta indhaha markay 5 sano xanuunku ay hayo, wixii 5 sano ka dambeeya ay dhakhaatiirta indhaha la socdaan si waqtiga munaasabka ah dawada loo bilaabo karo loogu bilaabo. inahaas aan kusoo gabagabeyn wabillahi tawfiiq. haddaba waxaa la gudboon dadka qaba cudurrada ku dhaca indhaha inay dareemaan muhiimadda uu leeyahay aragga, isla markaana haddii ay xanuuno dareemaan ay la aadaan dhakhaatiirta ku habboon.